xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya gaar ahaan qaybta la sheegay inay yahaayeen xubnaha sida gaarka ah madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud siyaasadiisii kala shaqeynayay inkastoo ay jirtay qaribnaan siyaasadeed iyo eedamo weyn oo dul hoganaya talaabooyinkaasi dowladdu qaaday ayaa imanka qaarkood lagu soo waramayaa in ay ka wacdeen tareenkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qaar ka mid ah xildhibaanadaasi oo markii hore loo jeedinayay eedamo ah inay raali ka noqdeen qaladaad siyaasadeed iyo mid masiiri oo dastuurka ah ayaa haatan waxay u sheegeen dhinaca villa Soomaaliya in aanay qayb ka sii noqon doonin kala tagidda ummadda Soomaaliyeed xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka oo gaaraya 257 mudane marka lagu darase xubnaha dhowr iyo konton ka ah ee aqalka sare tirahanay gaarayaan isku darka guud 329 mudane ayaa haatan wararka uu helay qiimo TV waxay sheegayaan tirada ugu badan ee mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya in dhanka villa Soomaaliya siyaasad ahaan ay ka weecdeen oo ay qaateen siyaasad kale oo taasi ka madax banaan xildhibaanada ayaa garwaaqsaday in xaaladda waddanka aanu ahayn mid sidaa lagu sii daawan karo maadaama hoggaanka villa Soomaaliya ay ku adkaysanayaan dood ku aadan inay qabanayaan doorashooyin qof iyo cod ay ku sheegeen balse qaar ka mid ah maamulada aysan heshiiskaasi qayb ka ahayn sida maamulada Puntland iyo Jubbaland maamulada heshiiskaasi ka qayb galayna ay markaasi ka soconin deegaanadooda wax saansaan ah oo muujinaya in doorashooyinka qof iyo cod markaasi abaabulkoodu ka socdaan dhinaca deegaanadooda haddaba dhawaan waxaa la filayaa in ay kulamadoodii caadiga ahaa dib ugu bilowdaan mudanayaasha baarlamaanka waxaase la filan karaa isbeddelo waaweyn oo ay yeelanayaan xildhibaanadu ka hor inta aysan kulamadoodii caadiga ahaa u bilaabanin laakiin waxaa xusid ay mudan tahay in xildhibaanadii hore waa xildhibaanada aanu markaasi qaybta ka ahayn siyaasadda villa Soomaaliya ay iyaguna gacanta ku hayaan mooshin ka dhan ah xukuumadda sida xogaha soo baxaya ay tibaaxayaan su'aashiisa waxay tahay maxaa ugu wacan in sida tan villa Soomaaliya xildhibaanadii laaluushka ay ku haysatay ee maalgelinta ku sameynaysay dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay inay xilligan ka weecdaan siyaasadda dambul jadiid warar aan ku kalsoonahay oo aanu ka soo xiganay ila siyaasiyiin ayaa xaqiijinaya in ay ku dhaxmilmeen baarlamaanka Soomaaliya oo xilligan saameyn weyn ay ku leeyihiin siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin madaxdii hore ee dalka iyo madaxda qaar ee dowlad goboleedyada xataa waxaa jira baa la leeyahay qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada oo dhankoodu ee xiriir kala dhaxeeya villa Soomaaliya hase ahaatee hoosta ka furfuraya siyaasadda villada ee ku aadan nooca ay sida wax u doonayso siyaasad ahaan in ay xaaladdu markaa ku dhamayso haddii ay yihiin arrimaha masiiriga ee laysku haysta sida doorashooyinka iyo siyaasadda guud ee waddanka lagu hogaaminayo wahagaag waxaad la socotaan wararka qiimo TV wanaagsan ayaanu dilanahay meel kastoo aad joogtaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa imanka aad u daneynaysa in hoggaanka ururka al-shabaab ay ku soo dhaweyso siyaasadda iskuna soo dhiibaan dhankeeda iyaga oo ka tanaasulaya mowqifkooda taa beddelkeedna ay cafis u fidinayso culummada u fadwoota dowladda federaalka Soomaaliya ee ka mid ah majmac mashaayikhda Soomaaliyeed ayaa imanka sheegaya haddii hoggaanka sare ee ururkaasi isku soo dhiibaan dowladda Soomaaliya xataa kursiga ugu sareeya ee dalka sida kursiga madaxweynaha ay u tartami karaan xubnaha baaqa loo jeediyay waxaa ka mid ah hoggaanka sare ee ururkaasi Abu Ubayda Ali Dheere oo ah afhayeenka ururkaasi iyo xubnaha kale ee ka tirsanba Sheekh Cali Wajiis oo ka mid ah mashaayikhda Soomaalida gaar ahaan culimada dowladda u fadwooda isla markaana arrimaha siyaasadda ka hadla ayaa warkan sheegay Wajiis oo ii waramay ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka Soomaaliya ay mar hore bacafis u fidisay dhammaan xubnaha al-shabaab haddii ay isa soo dhiibaan
balse xilligan wuxuu si gaar ah u wajiis baaq ugu jeediyey isagoo ku hadlaya afka dowladda federaalka Soomaaliya hoggaanka sare ee kooxdaas. waxa uu tusaale u soo qaatay rag siyaasiyiin ah oo markii horeba qayb ka ahaa kooxdaas markii ay ka tanaasuleen mowqifkoodana ay haatan qayb ka yihiin madaxda Soomaalida. waxa uu sheegay Axmed Madoobe hogaamiyaha Jubbaland in uu markii horeba ka tirsanaa ururka Al-Shabaab, ugu dambeynna markii ururkaasi uu ka baxay muddo fog uu haatan yahay hoggaanka dowlad goboleedka Jubbaland. waxa kale uu tusaale u soo qaatay Sheekh Mukhtaar Roobo Abu Mansuur oo ka mid ahaa hoggaanka sare ee ururka Al-Shabaab, sidoo kalena soo noqday hoggaamiye ku-xigeenkii kooxdaasi, haatanna ah wasiirka diinta iyo waqaafta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. waxa uu tilmaamay in haatan uu yahay mid ka mid ah xubnaha mas'uuliyiinta ugu firfircoon ee dowladda federaalka. sidaas isla mid buu yidhi xubnaha ku harsan shabaabka haddii ay ka soo weecdaan dariiqdaasi in ay fursad u heli karaan xilal sare waddanka inay ka qabtaan. laakiin markii uu wajiis warkan sheegay durbaba su'aalo ayaa ka soo laabtay oo ay ka mid yihiin haddii dowladda federaalka fursadda caynkaasi ah ay u fidinayso xubnaha hoggaanka Al-Shabaab sidaasi sahlanna ay dalka madax ugu noqonayaan, maxay tahay baa la leeyahay sababta ciidanka Soomaaliyeed dagaalka argagixiso loogu dhameynayo iyadoo ay sugayaan ciidamadu difaaca dalka ee wadamada dariskala ah iyo kuwa kale ee shisheeye. dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale waxa ay huganaysaa eedan la xiriira dagaalka ka dhanka ah ururada argagixisada ah inaysan taageerinin xilligan. tusaale, dagaalada ka socda dowlad goboleedka Puntland ee Daacish looga saarayo deegaanada ay kaga sugan tahay Puntland waxay ku eedeysan tahay dowladda federaalka in aanay dagaaladaasi door weyn aysan ka qaadanaynin. Puntland ayaana sheegtay inaysan haynin taageerada dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya. sidoo kale dowlad goboleedka Hirshabelle gaar ahaan bulshada gobolka Hiiraan bariga gobolkaasi bulshada degta oo dagaal kula jirta kooxda Al-Shabaab ayaa dhankooda u jeedinaya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya eedeemo ay ka mid yihiin inaanay dowladdu bixinaynin taageero ay ku garab istaagayso beesha xawaadle ee dagaalka kula jirto ururka Al-Shabaab. haddii dagaaladaasi socda aysan dowladdu jirin wax miisaaniyadda ay uga qayb qaadanayso iyo tallaabooyin kaleba, waxaa la isweydiinayaa warka dowladda sida uu dhab ku noqon karo oo ah in dalkan laga xureynayo maleeshiyaadka argagixisada ah sida Al-Shabaab iyo Daacish. muwaadin aragtida noogu soo gudbay qaybta hoose ee faalooyinka guud ahaan qaybtan intaasi ayay ku dhantahay. waad ku mahadsan daawashada wararkeena.